ninka aad dooran lahayd noloshaada u dooran lahayd maxaad ku xulan lahayd daawanaya kan xiriirka lahayn nafarina oo sii kobcaan kalsoonida waxa waaray lugaha iyo madaxba u qaada waa been. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu asxaabta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee ku xidhan bartayda qoyskaab aad baan idiin salaamaya galabta yaa ila jooga soo dhow xafsa waraa cabdirsaaq waa mahadsantahay dhammaan asxaabta channelkaaga waan ku salaamayaa martiqaadkan aad noo samaysayna aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga muhiimka annagaaba jecelnaanu ka muuqano channelkaaga insha allah barnaamijkeena gudagelayna aad baa u mahadsantahay walaal xafsa marka hore asxaabta isbar magacaaga si wanaagsan aniga magacaygu waa xafsa jibriil jaamac goobta aan joogno gobolkii gobolada eryaday gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood maasha allah waxaan rabnaa inaad xoogaa noloshaada in yaroo faahfaahsan aad naga siiso intaynan barnaamijkeena u gudagelin wallaahi horta cabdirsaaqow nolol saa u dheer melihi oo qiso nololada naga sheekeeya ma jirto kolay anigu feeristuwan laascaanood baan ku dhashay laascaanood baan ku bartay ilaa dugsi sare laascaanood baan weli joogaa hamigeyguna wuxuu yahay inaan laascaanood ilaa iyo intaan ka waayeelooyo joogo docon uga bixin maasha allah ma kuugu hambalyeyn mataana aad iyo aad baa u mahadsan tahay haddaba barnaamijkeenaan u gudagelaynaa xabsaay qoyskaab wuxuu caawiyaa dhallinyarada inta badan jecel inay nolol cusub sameeyaan iyo dadka lamaanayaasha ah oo nolosha ku midoobay waxaa jira dhallinyaro badan oo inta badan nala soo xidhiidha ama caqabadooyin fara badan ay ka soo wajahdo dhanka lamaanayaasha barnaamijka markaa waxaanu ku caawinaa mararka qaarkood dhallinyarada jecel inay nolol cusub bilaabaan iyo kuwii horay ugu jirayba galabta waxaan rabnaa inaanu bal barnaamijka aad bal insha allah adiguna aan qayb ka noqoto oo su-aalaha inta badan dhallinyaradu isweydiiso qayb ka mida adiguna aan ku weydiiyo haddaba aan gudagalna barnaamijkeenna jacaylka maxaad ka aaminsantay ama waa maxay jacaylku wallaahi horta dileeda waa maxay jacaylku qofba wax ku qeex aniga haddii lii dhiibi lahaa waa xiriirka u dhexeeya inaan ilaa heer mustaqbal baan dhihi lahaa sax intaasan kule aan ku qeexi lahaa intaasaad ku qeexi lahaa maasha allah aad baa u mahadsan tahay haddaba ninka aad dooran lahayd noloshaada u dooran lahayd maxaad ku xulan lahayd su-aashaas in badan masaatol maxaa lagu weydiin waayey oo dhalinyaro bantiisana asaabo kule maxaa su-aasha ku weydiin waayey hadduu i daawanaya kan xiriirka lahayn nafarina waa u sii diray isage wallaahi horta feeristuwan waxaan ku dooran lahaa inuu qofku yahay qof xiriir jacayl oo rasmiya ii qaba waayo jacaylka wax loo dhigayba jirinba dee qof igu kalsoon daacadnimo kolay astaamahaasoo dhan wax soo isgeli lahaa haddaan kala guri lahaa inaan nahay laba qof oo isfahmaya qofkaas qof fahmi kara inuu yahay waxaan ka doodaya iyo waxaan doonayo labadaba qofkaas kale kolay nolosha la wadaagi lahaa hadduu daawanaya sidii lahaa sagaaji baan dhihi lahaa niyo maasha allah aad iyo aad baa u mahadsan tahay aragtidaada jacaylku muxuu ku kobcaa kalsoonida iyo runsheega labadaasuu jacaylku rugni u ah kolley ugu waaweyn cabdisaaqow maasha allah aad iyo aad baa u mahadsan tahay dhanka nusqaankana markii loo yimaado maxaad odhan kartaa markii waxaasu dhacaan oo jacaylkaasu nusqaan noqon karaa horta jacaylka waxa ugu weynaa cabdisaaqow baabiyay waa beenta jacaylku hadduusan been lahayn maba baabooba calaf maahane jacaylka waxa waaray lugaha iyo madaxba u qaada waa been inay yaroo dee wax alaaliyo wuxuu la joogaa jirin ama marka horeba runta sheegi karinoo nolosha uu ku nool yahay kugu qancin karin waa wuxuu iskaga kaa dhigayaa kii keliya ahaa hadhow marka xaqiiqada u dhaadhacdinna wuxuu kaaga sheekan jiray inay riyo ahaayeen bay kuu soo baxaysaa marka waxaan dhihi lahaa jacaylka riyada ha laga daayo marka hore runtaa loola tago maasha allah aad iyo aad baa u mahadsan tahay adiga weligaa jacayl ma kugu dhaca haa waan gartay bal xoogaa nooga taataabo
والله سؤال وسؤالي سكسيهات كايو اسم سومالي جعلين ها أنا دو ده إذا وصلت حسنا ملها قاعد أنا بان حلو ولا حين ولو هدنا عرف كون كذا كحيي يعني شعيل كده وحني نيجي شكينا نوع يارجع وحلو يديا بالي بنتو كبابا كلي وقع حسلي يا يسفهم وين واشري ما شاء الله دنيتو عندي لا واحد بدني جو يديا شعيلك waan gartay dhanka kale markaan eegno in waxyaabo aad ku xasuusato ama xasuus kugu reebtay oo isaga ka socda miyay jiraan waxaa ka mid ah walaahi horta qof dabeecad ahaantiisa aad u fiican buu hayo intii isaga gadaashaan cid la sheekaystay maanaan arag qof aan ku soo iraado kolay hebel buu soo shabahay ama ku soo dhowyahay waxaan dhihi karaa xiriirkaygu wuxuu ku baabaayay bis calaf la'aan waxaa ka mid ah ayadoo kale waxyaalaha markaa taagan ama carqalad anigaygu ah inuu ahaa qof bedeli karaa jawiga aan markaa ku jiro hadii mid muruga tahay inuu isla markiiba bedeli karo anigoo qosley ka tegi jiray qodobka kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxaa jira dhalinyaro badan oo inta badan jacayl isku guursatay iyagoo jacayl isku guursaday oo loo kharash garoobay oo loo hawl iyo kharashba galay haddana si yaroo fudud uu markaas reerkaasu ama ugu soo ilaato ama ay ku soo dhammaato noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo halkaas ay ku soo gabagabowdo maxaad u sababayn kartaa horta laba mid baan anigu dhihi lahaa fikirkayga sax jacaylkii rasmiga ahaa ee la sheegi jiray dad isku raacay maysan ahayn oo dhalanteed iyo ama inantaas inanka lacagka ku raacdo ama quruxa ku raacdo wax uun kalaha ku raacda jacaylkii rasmiga ahaa baan markii hore meesha oolin waa talabayse guri adigu muusig iyo wax macaasi ah lagu bilaabay buu ahaa dhismahooda labadaaba baan dhihi karaa ragga iyo dumarka markaynu u nimaadno keebaa xagga runsheega iyo jilista jacaylka ka runsheeg dhow ama ku fiican waad is odhan kartaa qofkaas wuu ku fiican yahay ama dee marka runta loo yimaado xagga jilista iyo ka runsheegidda rag iyo dumar adigoon dhanka dumarka kulli dumar adigoon dhanka dumarkana u liicaynin insha allah dhalinyaradana aan xaqiiqada ka sheegay walaahi horta cabdisaaqow anigu shakhsi ahaantay dadka jacaylka jila meeyey qof dadka qaar baa jiro dee been ku jira ama unaan xiriir rasmiya sameeyo xiriirkaa ka guulgaadho iyo inaan afaariis isku guro bannaankaaga kala joogno laakiin waxaan dhihi karaa qofka xiriirka jilaahi waa midaan u jeedin xiriirka qofka uu jilaya macnihi waxa weye qofkan maaweeli ama sidii uu u dhihi lahaa runta ugu sheegi lahaa buu la'yahay kusileynaya qofka niyadda ha ka jibin walow runtu ay fiican tahay qofkaas ama kugu jeclaado ama kugu nicnaa runtu sheegtay fiican tahay laakiin jacaylka hadaa aragto qof jilaya oo qofan jaanis badan haynin ama qofka aan ka helin qofka aad dooqaaga ee aad ka heshay jacayl lama shiili kartid xaqiiqda waxa isla tigsaa runta su'aashayna kale barnaamijkeena baan weli ku guda jirnaaye maxaa sababa qofka aad jeclayd ama si dhaba aad u jeclayd markii aad isweydaan ama ay dee xurguf idin dhex marto oo jacaylkiinni bartaa uu ku soo idlaado ama ku dhammaado maxaad is odhan kartaa ama qofku muxuu u duloobaa sababaha uu u duloobo isla markaana uu mararka qaarkood sida aynu dee marar badan aragnay oo qofkaasu nafsadiisa isku dhaafiya wallaahi horta waa su'aal fiican oo weliba fiican in barnaamijka aynu anigu martida ku hay in dhalinyar fara badanna ay garabkay ka muuqan lahayd aan ka wada doodno horta marka koowaad waxaan dhihi karaa anigu qofkaas oo kaleeto qofka wixii uu ka aaminsanaa ama feeristagoon qofka markaa noloshaada siisid oo aad tiraahdo qofkaas waa noloshadii iyo mustaqbalkeedii iyo hadafkaaga oo dhan qof bila'aadan inaad ku xidhin haddii aad ku xidhid sida aad sheegto waxaa dhacaysa in qofkaas noloshiisu naaqis ku yimaado sababtoo marka hore wax jeclaanaysid waa inaad aamintaa qofkan inaad waayi kartid inaad heli kartid inuu bila'aadan yahay inuu kugu ciyaari karo wax badan waa inaad qofka ka aamintaa adigoo jecel haddana laakiin haddii aad tiraahdo qofkan khaladba kama suurtowdo jacaylkayga maanisu jacaylkaygaas buu hirgelin karaa wax kale kama suuroobayaan wasaa sheegtay waxa laga yaabaa qofkii inaad kala tagtaan qofkii inuu aduudan calafkiini kala kaxeeyo marka noloshaada hadafyo badan aa lahayd oo naaqis ku yimaado sida
inaad haddana qorshihii aad lahayd isaga dartuu baabi'isid in nafsadaada dhaawac soo gaadho niyadjabka ku soo gaadho in horumar badan oo aad samayn lahayd ama dadku kaa filan lahaayeen bartaa lagu waayo dhalinyarta waxaan dhihi lahaa qofka markaad jeclaanaysaan marka hore waa inaad aaminsantii inuu bini'aadan yahay rag iyo dumar midkaad doonaysaan ba ha ahaado inuu qofkani kugu ciyaari karo wax badan waa inaad ka aaminsantahay jacaylkaagana aad aaminsantihiin su-aasha xigta raggu ma ku saxan yihiin odhaahda ah dumarka beenna waa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa taa anugu ragga waanba haystaaba haddaan mamnuuc u helaan maxkamad baan saari lahaa mustaqbalkan waxaan doonayaa inaan maxkamad looyar ka noqdo insha allah marka ragga waxaan doonayaa inay si fiican u karbaasho anaa dumar oo iniga hiilinaya waa marmarka khaldanay inta aanan isahayna waa la wada soconaynaa sida cabdirasaaq oo kale daris ma hayno annagu marka waa waxa cabdirasaaqow haddii su-aashaan dib ugu yara noqdo waa tii hore ay weydiinaysay oo ka mid ahayd dadku inay inta jacayl isku dhistaan mudeerka bacdi ay baabaan sababtoo ah qofka inankani hadduu inanta ugu sheekan jiray fooq aabahay leeyahay baan ku dejinayaa roomaan kaa dejinayaa meel heblaan ku marinayaa waxaan ku leedahay cagaha dahab baan kuu gelinayaa oo been ah oo markima jiro barmataala oo markii reerita kugu leena bris cadabka inoo saar waxa ma haye waxay ka mid tahay reerka in yar jiro inay markaba baaba'aan marka waxaan leeyahay inamada waniman iyo hurunta iska sheega anigu wiilka igu leeyahay xafsi jibriil waxa iyo waxaasan haystaa ama waxaasan ku awoodaa walaal waan kugu raaci karaa iyo kuguma raaci karaa labada maana khiyarka iska laakiin raganimadiisu waa inay runta tustaa aysan tusin inuu been maxaa inan yaro 9 bilood ku dhalatay oo boqolaal hablood baa Soomaaliya joogay maxaa wiilasha beenta ku kalifay waniyo afar baa yahay ni binay habliina iminka xukuumad walba way taagan yihiin de beenta naga daaya runta noo sheega ama nagu raacno ama nagu diidne ka kulay waxaan dhihi lahaa qofku wuxuusan hayn hadduu sheegto aakhirka ku soo baxaysa baashaas inta birs cad kariya gaadhin hay hal hagaajiyo halka ale naga habeeyo masha Allah aad iyo aad baa u mahadsantahay runtii wax badan baanu ka faa'iideysanay galabta xafsaay runtii qof maskaxi ku duugan tahay waa taa ilaahay ku sharfay barnaamijkeeni su'aalaha ku weydiinay ama barnaamijkeeni gaarka ahaa intaas inoogu xiran yahay ma jiraan adiga waxyaabo aad adigu jeceshahay ama aad xiisayso ama aad isleedahay insha Allah way ku rumoobi doonaan aad u jeceshahay maxaa kamid walaahi wax aan jecelahay wadeed iyo qorshaysan inaan horta waxaan ugu jecelahay inaan looyarad noqdo mustaqbalka insha Allah imkaan ku tiri jiro walaahi waxa aan aad u jecelahay habeenka ku socda maanta ku soo toosaa inaan gobolkayga aan joogo ee aan ku dhashay muwaadinada aan ku ahay Soomaaliya dhan waa muwaadiniinta dadka joogayba in aan wax ka bedelo oo hadii bari Kamaali adduunka akhralooda noono yaan dhinto leeyahay wax barma ku taala ayo la igu sii xuso leeyahay waxa inaan baa ka tagtay inaan sameeyaan rajeynaya waxas laakiin wixii uu noqon lahaa iminka ima qorshaysna laakiin insha Allah bal bulshada dhexdeeda aan eegayayo wixii lagu baahi badan yahay ama bulshadu aysan haysan barajeynaya inaan gobolka soo dhex muujiyo insha Allah aad iyo aad baa u mahadsantahay barnaamijkeedii intaas inoogu xiran yahay maxaad asxaabta oran lahayd horta asxaabta waxaan leeyahay maanta waan inagu soo kadin daaqad kaga soo bood hadaa maqli jirteen daaqadan kaga soo bood barnaamijkii halkan waxaan ka sameeyaa dhammaan asxaabtaada meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed adigana aad baan kugu mahadcelinayaa walaal sida sharafta leh ee karaamada leh ee noo soo dhaweysay igana waxaan leeyahay halkii hore la joogay maanta laga sii guuro bartii aan inagu ogaa bariyada bedelaan aan ogaado insha Allah dhamaantiin halkan waan iga salaamaya aad iyo aad baa mahadsantiin kulanti dambe xiiso leh